Wacana wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeeni Tala Dhakhtar. Waxaanu kusoo qaadan doonaa xanuunada ku dhaca qanjirka thyroidka, gaar ahaan marka qanjirka thyroidku uu hooseeyo. Waa maxay qanjirka dhuunta ee thyroid? Qanjirka thyroidka wuxuu ku yaalaa dhuunta, wuxuuna labada dhinac ka xigaa tuubada hawo-mareenka qaybteeda kore. Qanjirku waxa uu soo saaraa dheecaano hormoon oo jidhku uusan ka maarmi karin. Dheecaanadaasna waxaa loo yaqaanaa thyroid hormones. Haddaba waa maxay cilladaha ku dhaca qanjirka dhuunta ee thyroidka? Cilladaha qanjirka waxa uu u badan yahay laba nooc oo kala ah in qanjirku uu howlgabo oo uu keeno cudurka aan ka hadlayna ee loo yaqaano dhacsanaanta qanjirka thyroidka oo loo yaqaano hypothyroidism, iyo inay dheecaanada uu soo daynayo siyaado noqdaan oo markaasna loo yaqaano kacsanaanta qanjirka thyroidka. Afka caafimaadkan lagu dhaho hyperthyroidism. Waa laba cudur oo liddi isku ah ama iska soo horjeeda. Marka loo eego calaamadahooda iyo daaweyntaba way ku kala duwan yihiin. Waa maxay howlgabka qanjirka thyroidka ama loo yaqaano hypothyroidism? Howlgabka qanjirka thyroidka macnihiisu waa in heerka dheecaanada hormoonka ee hoos u dhacaan. Haddii hormoonka jirku ku filan uu qanjirku soo saari waayo, waxaa qofku dareemaa ama ka soo muuqda astaamo dhowr ah oo lagu garto xanuunka. Keena xanuuno badan oo isu tegay. Kow waxa uu ah caabuq ku dhaca qanjirka oo dila unugyadii soo saari lahaa dheecaanada hormoonka. In qof qabay kacsanaanta qanjirka thyroidka ah la siiyey dawo dejinaysa oo ku badan, taasoo keentay in qanjirku howlgabo. In qofku uu ku yaryahay jirkiisa maadada hormoonka ee hormoonada laga sameeyo ee loo yaqaano iodine. Qanjir kale oo maskaxda ku yaal loo yaqaano pituitary, shaqadiisuna ay ka mid tahay inuu kantaroolo amarna siiyo qanjirkan thyroidka oo ciladaysan ama xanuun soo gaadhay. In qanjirku gabi ahaantiisba qofka laga saaray xanuun ama buro kasoo baxday awgeed. Dawooyinka qaar baa iyaguna keeni kara hoosna u dhigi kara qanjirkan shaqadiisa. Uurka hooyooyinka xilliga uurka ay ku jiraan qanjirka shaqadiisu way yaraataa. Midka ugu dambeysana waxay tahay in ilmuhu ku dhalan karaan howlgabka qanjirkaas haddii hooyadu ay ku yarayd jirkeeda maadada iodine, ama cunugu uusan lahayn qanjirka, ama qanjirku uu ka ciladaysan yahay, ama qanjirku xanuun ka qabo. Sidee lagu ogaan karaa in xanuunkani ku hayo? Waxaa lagu ogaan karaa in dhiigga laga baaro iyadoo la fiirinayo heerka ay joogaan dheecaanada qanjirka thyroidka, inay dhacsan yihiin, inay kacsan yihiin iyo inay dabiici yihiin intaba. Baaritaankaas waxaa loo yaqaanaa thyroid function test. Waxaana la eegaa 3 hormoon oo kala ah TSH oo ah thyroid stimulating hormone, T4 oo thyroid iyo T3. wayna isla wada shaqeeyaan. waa in dhakhtarku aqoon u leeyahay akhrinta jawaabtan si loo ogaado xanuunkaaga noociisa iyo sida loo daweeyo. Xanuunada dhacsanaanta ama howlgabka qanjirka thyroidka waxa uu ku badan yahay haweenka dhexaadka ah. Dumarkeena Soomaalidana aad ayuu ugu badan yahay, laakiin nasiib darro badanaa dhakhaatiirtu si dhaqso ah kuma baraarugaan, maadaama calaamadaha la dareemayo ay u ekaan karaan cudurro kale sida rheumatismka, wadna xanuunka, cudurka cholesterolka, brucellada, calcium yarida iyo cudurka loo yaqaano fibromyalgia. Sidaa daraadeed, haddii aad isku aragtid astaamaha cudurka, waa in dhakhtarka uu kaa baaraa cuduradaas oo idil si loo hubiyo midka aad ka sheeganaysid. Xanuunkan thyroidka dhacsan waa qasab in jirku uu helaa hormoonka ka maqan, ama bedelka hormoonka ka maqan waa inuu helo. Waa maxay haddaba calaamadaha lagu garto howlgabka qanjirka thyroidka? Calaamadaha la dareemaa waxay ku xidhan tahay heerka uu marayo xanuunkaaga. Haddii xanuunka uu muddo ku hayay, waxaad dareemaysaa calaamado ka duwan marka uu kugu cusubi. Calaamadaha oo la dareemo waxaa ugu horeeya caajis iyo daal. Haweenka qaar daal iyo tabardari awgeed markay xoogaa socdaan waa inay nastaan oo ay fariistaan. Qabowga oo aad dhibsatid ama xilliga qaboobaha oo caajisku uu aad kugu bato. Calool fadhi ama calool istaag. Miisaankaaga oo kordha adigoo aanan cunin cunto badan. Wejiga oo aad ku barara ama aad dareento inuu buuxsan yahay ama daamanku ay buufsan yihiin. Codka oo xabab yeesha, khaasatan subaxyada hore. Dadku waxay isku arkaan dhuunta oo bararan. Murqo xanuun iyo tabardari aadan si sahlan fadhiga uga istaagi karin ilaa inaad wax qabsato ama aad afarta ku kacdo mooy. Kala goysyo xanuun ama barar. Caadada oo kaa wareerta ama siyaado noqota socodkeed. Tinta oo khafiifta ama inay kaa googo'ayso aad dareento. Maqaarka jirkaaga oo
oo boodhboodh yeesha ama qallayn noqda, hilmaan aadan horay u qabi jirin iyo caajis maskaxda ah, dilan soo noqnoqda ama haweenka oo uur yeelan weysa wuu keena xanuunkan. Qanjirka oo soo weynaada ama barara, qofkana uu dareemo in dhuunta laga ceejinayo ama xanuun uu ka dareemayo dhuunta. Dadka badankooduna xanuunkan ay qabaan iyagoo dhuunta wax barara aan ku lahayn. Xanuunka hawlgabka qanjirka qasab uma aha in qanjirka uu bararo, dadka qaarkood xanuunkan ayay qabaan iyaga oo dhuunta aanay wax barara ku lahayn. oo ah in la qaato kiniino galaya beddelka hormoonka maqan. Daawadaas oo loo yaqaano thyroxine, oo hal kiniin la qaato maalin kasta si joogto ah inta aad nooshahay. Kiniinkan waa hormoonkii jirkaaga uu u baahnaa, ma aha sida dadka qaar aaminsan yihiin daawo qanjirka bogsiinaysa ama qofka uu kaga raysanayo xanuunkii. Daawadan si fiican ayay wax u tartaa calaamadaha oo idinla way qarsoomaan. Waa muhiim inaad dhakhtar la xiriirtid ama la xiriidhid inta aad daawada qaadanaysid si loo hubiyo cabirka kiniiniga lagu siiyey inuu kugu filan yahay. Waxaa laga yaabaa inaad ka maarantid dawada oo qanjirku dib u shaqo bilaabo, inaad weligaa wadidna way dhici kartaa. In daawada lagu kordhiyana iyadana waa suuragal, ama in sideeda kuwad lagu yidhaaho. Xanuunku markuu kugu cusub yahay saddexda bil ama 3 bil mar in dhakhtar aad saragtan ayaa habboon, kadibna 6 bil mar haddii aad inaad mar saragtaan. Haddii aad uur yeelatid waxaa qasaba in dhakhtarkaaga aad la xiriirtid, sababtoo ah badanaa daawada waxbaa laga bedelaa. Ilaa iyo hadda ma jiro daawo dabiici ah oo la hubo in kiniiniga beddelkiisa u geli karo. Way jiraan cunooyin qaar oo caawin kara shaqada qanjirka markuu qofku caafimaad qabo, laakiin markuu uu qanjirku hawlgabo waa in qofku uu daawo qaataa si uu xanuunku uga bogsado.